بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. maanta oo ay taariikhdu tahay 2 bishii 2018 ayaa Light Finish Production waxay jeclaysatay inay idin bilowdo sheeko taxane ah. Sheekadaas oo la magac baxday qayb iga mid ah. Laga bilowdo 2 bishii 8 waxaad kala socon doontaan maalin waliba YouTube channelka ay leedahay Light Finish Production, midkaas oo si gaaban aad uga baari karto YouTube-ka adigoo qoraya Light Films. waad mahadsantiin la socod wanaagsan. waxa ay ahayd habeen xilli dambe iyadoo oo tiro askar ah ay taagnaayeen wadada dhinaceeda, agtoodana uu yaalay mid ka mid ah askarta ayaa meydka ag fadhiyay. waxa uu fiirinayay wejiga meydka iyadoo ahayd gabar aad u dhaayar waa uuna ka xumaa. waxaa dhinaciisa usoo dhaqaaqay askari ka mid ah askarta isagoo ku yidhi, taliya magaceeda waa Fahma, waxay ahayd ardayad faamilkeedana magaalada ayay ku nool yihiin. waxaa kor usoo fiirinayay askarigii kalete isla hadda wargeli qoyskeeda. waa uuna soo istaagay. laba nin oo kale oo ka midana waxa ay qaadaysay meydka. waxaa dhacayay mobile ag yaalay laptop, waxaana qabatay gabadh magaceedu uu ahaa Amal iyada oo lahayd halo. kadibna waxay dhageysanaysay qof kala hadlayay. hal mar waxa ay la soo booday yah iyada oo ku dhawaaqday Amal hooyo. waxaa hubsaarka dhexdiisa iska dhab socday iyaga oo uu degdeg iyo naxdin wejigooda ka muuqata. Amal iyo hooyadeed Luul iyo aabaheed Sulub. hooyada ilin ayay iska tiriisay iyadoo gacanteeda midna la midaysay gabadheeda gacanteeda. kadib waxay u yimaadeen shaqaalihii iyagoo u soo baxay dhakhtarkii. waan ka xumahay askariga suga, kadib ayaa arki kartaan meydka ayuu ku lahaa isagoo oo u jeeday hooyo Luul iyo Amal ilintooda. laakiin waxaa tallaabo hore usoo qaaday aabbo Sulub isagoo lahaa, waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay hooyo lagu yidhi waa meyd cunugeeda, fadlan noo ogolow. laakiin waxaa dhacayay telefoonka Amal iyada oo qabatay. waxayna lahayd ha Ilyas oo kuburi ay ugu soo celi. ilinta ayayna iska tiraysay. Fahma ayaa buntada magaalada looga baxo keligeed ku aragnay, waana ilmeynaysaa mana hadlayso oo kuburi noo imo ayuu ku lahaa. waxaa ilin farxadeed ay soo dhaaftay Amal iyada oo ku soo jeesatay waalidiinteed iyada oo kor u oynaysa ayay hooyadeed habsiisay. hooyo, qofka dhintay walaashay ma ahan, walaashay way nooshahay, asxaabteeda hadda soo wacay, iyaga ayayna joogtaa. waa la isfiirinayay. aaway iyada hadda xaggay joogtaa ayay lahayd hooyo Luul. waxaa gaari ku imanayay buunto magaalada ka baxsan Amal, hooyo Luul iyo aabbo Sulub. gaarigoon si toos u istaagan ayay Amal dhaqso ka degaysay iyadoo u jeeday 2 gabdhood iyo 4 wiil oo la taagan walaasheed Fahma, oo ay soo orday iyadoo habsiisay walaasheed Fahma kuna ooyeysay. waxaa iyaguna soo deganayay labada waalid. kadib waxaa ag taagneyd Fahma iyo Amal isku weynaya hooyo Luul iyadoo Fahma hooyadeed ay habsiisay, Amalna ay habsiinayeen gabdhaha iyo wiilasha kale. sabab laakiin maxaad waxaan u samaysay? maxaad keligaa meesha ka qabanaysaa? ayay su-aalaysay Amal walaasheed Fahma, halkuu aabbo Sulub keligii weli taagnaa uuna aamusnaa. waxaa dhinaca aabaheed usoo tallaabsatay Fahma, hooyo ciidda waxaa ka dhiman 2 maalmood. aabbeena wuxuu iga ballan qaaday inaan wada ciidina anigii walaalkii Cadnaan, ilaa haddana midaas iima samayn. sabab ayay lahayd Fahma iyadoo dib ugu soo jeesatay hooyadeed iyo walaasheed. hooyo, aniga walaalkii 7 sano maana arag. sanad waliba aabbahay wuxuu iga ballan qaaday inuu ciidda nala ciidayo, mana dhacdo. haddaan weydiinay igama jawaabo ayay cod ohin ku jirta ku lahayd Fahma iyadoo hooyo Luul ilin indhaheeda ay qoysay. Amal ayaa isku dayeysay inay aamusiiso. waxaa aamusnaa aabbo Sulub iyagoo dhalinyarada kalena ay ka xumaayeen dareenka Fahma. hooyo, aabbuwaha waan u xiisay, weliba Said. waana ogahay inaad dhammaantiin u xiisteen. sababta walaashay mar walba waad canaanata ama aabba canaanta isaga ayay wacdaa. haddii uu foon ka qaban waayna sawirkiisa mobeelka ugu jira ayay ku oydaa ayay Fahma tiri iyadoo ilin soo dhaaftay indhaheeda. waa la wada ilmeynaya iyadoo aabbo Sulub indhihiisa ilin soo koraysay.
hooyo, mar waliba oo aabbo arka adigoo murugaysan wuxuu fariin u diraa walaalkay isagoo ku dhaha hooyada way ku xisay soowac. haddii uu soo jawaabi waayo hooyo, keligii ayaa aabbo qol ku dhexeeya ayay lahayd iyada oo usoo dhawaanaysay dhinaca hooyadeed Fahma. hooyo, adigana marka aabbaha shaqada aado anigana aan kuleejkayga tago aabbana oo baxaad keligaa guriga kusoo hartid maxaad samaysaa? waxaad maanta dhan daawataa muuqaalada walaalkii raantiisa laga duubay, anigana taas waan ogahay ayay Fahmo ku oynaysay iyadoo hab mar wada siisay hooyadeed iyo walaasheed Amal. waxa isagana hoos fiirinay si uu u qariyay lintiisa aabbo Sulub, laakiin waxaa dhinaciisa usoo dhaqaaqday Fahmo iyadoo intay soo hor istaagtay ilinta iska tiraysay. aabba, anigana mar waliba oo arko wiil dhalinyaro oo walaashii la socda waxaan u xiisaa aboowahay. sabab aabbo, sabab ayay cod sare ku lahayd Fahmo isaga oo dharbaaxay, waana la wada aamusay. kadibna waa uu isaga soo dhaqaaqay goobtii. waxaa soo dhacayay foonka Amal iyada oo qabatay. haa Cadnaan ayay lahayd Amal. Cadnaan waxa uu dhex taagnaa goobta nasashada ee kuleejka isaga oo hareerihiisa ay joogeen arday kale gedisan. aw Fahma ayuu su-aalay Cadnaan Amal iyada oo Amal u dhibtay foonka Fahma. halow ayay lahayd Fahma. Fahma, waa maxay waxaad samaynaysid? soo kaama ballan qaadan 2 bilood gudaheed ku kulmayno, ayuu Cadnaan ku canaaninayay isagoo ay ka muuqatay murug iyo cabsi una baqay walaashii Fahma. iga ballan qaad inaadan mar dambe ficilkan oo kale aadan samaynin, hooyana aadan ka ohinin. haddii kale mar waliba waan kuu caraysnaanayaa, waana iska ilaawayaa in gabadh la yidhaahdo Fahmo ay la dhalatay, ayuu cod qeylo ah ku lahaa isagoo cadho ay ka muuqatay Cadnaan. waa ballan walaal ayay ugu jawaabtay, waana uu yaro aamusnaa isaga oo ka xumaa inuu canaanto. anigaba waan ku xiisay weliba zaa'id, ayuu ku calacalay Cadnaan. aad baan kuu jeclaa walaashay, ayuu yidhi Cadnaan iyada oo dareemaysay inuu ilmeynayo. in badanoo aad ayaan ku jeclahay aniga walaal, ayay ugu jawaabtay iyada oo dhigtay foonka. waxaa ahayd 2 maalmood kadib, waxaana qolka dhexdiisa labada dhinac ka fadhiyay hooyo Luul, labadeeda gabdhood Amal iyo Fahma iyagoo wada aamusnaa. mar waliba waxaa dhici jirtay inaan anigii aabbaha isku qaylino ama aan murano, sababtoo waxaan dhibsan jiray murugada wejigiisa ka muuqata. aniga og sababtuu u murugaysan yahay ayay hadalkeeda ku bilaabatay hooyo Luul. Cadnaan waxaa mar waliba u muuqan jiray murankaas, xataa mararka qaar waxa uu arki jiray aabbihii anigoo u gacan qaadaya ama isagoo i gacan qaadaya, ayay lahayd hooyo Luul iyada oo fikir ka muuqdo. badanaa labadiina waxaad ku mashquulsanaydeen waxbarashadiina ama shaqadiina, laakiin isagu mar walba waxa uu la kulmi jiray isku dhaca anaga. kadib markii uu gaaray da'da 16 sano ayuu wuxuu codsaday inaanu dibadda waxbarasho ugu dirno. doodir kadibna waan ka aqbalnay, laakiin 2 sano kadib waxa uu inoo sheegay aniga aabihiiba inuusan doonin inuu kusoo laabto halkaan waan ku noolahay, uusan u dul qaadan karin dagaalkanaga iyo muruganaga joogtada. ayay hooyo Luul ku oynaysay. markaan ku yiri anaga ku imanayna, waxa uu ugu jawaabay hooyo, haddii aad doonayso inaan waxbarashada deganaan ku wato marnaba halkaan jooga ha imanin. marka gabadheeda aniga ayaa walaalka kaa fogayay, ayay ku calacashay hooyo Luul. maya hooyo, waan ku baryaa saas oran, ayay lahayd Fahma. gabdhahayga aabihiin khalad ma leh, sababtoo aabihiin u murugoonaya waxa ay tahay waxaa jira 3 walaalo kale oo idinla dhalatay, 2 wiil iyo gabadh. ayay kaga naxastay hooyo Luul gabdhaheeda. yah, ayay lahayd Fahma iyada oo caado u fiirinaysa hooyadeed. gabdhahaygii waxaa jira reer kaleeta oo aabihiin lahaa oo aan keenan ahayn, 2 wiil iyo gabadh ayaa idinla dhashay. magacooduna waxay kala yihiin Guuleed, Baashi iyo Saham, ayay tiri hooyo Luul iyadoo u jeeday aamusnaanta gabdhaheeda. hooyada dhashay walaalihiin ayaa diiday inuu aabihiin caruurtiisa arko ama uu la kulmo. aabihiina midaas ayaa mar walba isaga dhibaysa, una la murugaysan yahay, ayay ugu dartay hadalkii hooyo Luul. taasoo aniga waan ogahay, waxaana ka ogaaday aabbahay, lamana baahna inaad hadda midaas isku murjiso, ayay ugu jawaabtay Amal iyadoo istaagtay. laakiin gabadheedii sug. maya hooyo, dadkaas diiday xataa inay aabbahay mar kale la arkaan, ma dhihi karno walaalahano, iga raali noqo, ayay ugu jawaabtay si caro leh Amal iyada oo ka baxday qolkii. waxaa hoogaa aamusneyd iyadoo fikir ka muuqday Fahmo, waxaana fiirinaysay hooyo Luul. Fahmo ayaa waxay bilowday inay dholo cadayso, kadibna soo fiiriso dhinaca hooyadeed. Guuleed, Baashi
iyo Sihaam. 3 walaal kale miyaa ila dhashay hooyo. Aad ayaan ugu faraxsanahay midaas. Walaalkii Cadnaan waa inaan u sheegaa. Ayaa cod ay farxad ka muuqato ku lahayd Fahmi iyadoo habsiisa hooyadeed. Laakiin hooyo walaalada hadda xaggay ku nool yihiin ayay su'aashay Fahmi hooyadeed Luul.